السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا معنا وناكسان داود الذي الحانتين به ميل كستوا جوجتان كسر دواده برامج أنا ورئيسي جارة كقاضينه أبوان داير ولقوا مقعوا مهد حكماوي مهد أو قبية بدن تري ميلا بدن كسوق قريب قلي وما أنت نقول سجن استوديوها كود ساب تي في نوجو هرين أبوان كوسو دوين يا استوديوها ساب تي في كسر دو وندوه هي ولا لا عمر يباش آد بنو دوه ولا لا استوديو ساب تي في آد بنو دوه كيلا مقالة هرقسة شرف فينوت هاي نقول سوق قريب كشو ورئيسي كان جاركه بل واحد نوجو ورنتاه عم بعد سؤال شو كود كودينا قرمت بلوذي إن اتحاد ترسم بسم الله الرحمن الرحيم تحاها ترينتو ذا تمقعيقو انتي انقرني انتي قرنا سابا مرلا بعد نقول عليو مقعيقو اما هاد مركا الله حنطو اما لقو حنطا بضاك حكماوي تحاها بلا بديدو مدة انسانة وسيفوق انسانة ودوين باهيد مدة عن تح بلاوي وحي الله بدي يكون يصدح يا طوانكي تاسو مركا aan isku dayay in badan oo in wixii u jira soo saaro marka ina haseed marka goormaad isku aragtay inaad sameyn karto tix amba sugaati qof kasta oo tamar buu is ogaadayo damar buu soo shaabaxa qof kastaana wax ku jira baa jiro oo isagu aanu awoodin markuu yar yahay inuu soo saaro marqula waxa laga yaabaa dadku inay Allahumma salli ala Muhammad meel gaar ah ku tiriyaan laakiin balse markay wixii ka tambataan oo kale markaad weynaato ama waqtigaaga ay gaadho ama hilaadaada saad u taqaanaba ay wixii ka soo baxayaan marka kulli anigoo iska yar oo imika waan yar haynida yar baan hay imika laftigeeda laakiin balse intan aad u ka yar oo dugsiga hoose dhex dhiganaya ayaan isku dayay bal tixaan sameeyo oo markaa bala soo jeediyo walow kana ay suurtagelin inaan studio aan ka soo jeediyo iskuulka hortiisa badanka laakiin balse waan isku day jiray ana isku entertain garin وهاجك ما jiraan tixo aad sameysay oo wata dareen gooniya haa way jiraan marka waa tixa badan way jiraan tixa marka dareenka ka hadlaya dareenada kala duwan dareen bulsho iyo dareen jacayl marka inagu bulshadeena waxaan badanka hadeen dareen jacayl oo baan u gurnaayo marka halka dhalinyarta raacay dareen jacayl halka hadeen u nisbeynaba way jiraan tixo noocaas ku saabsan oo marka qisadooda markii looga sheekeeyay kadibna qanciyeen kadibna suugaana ka sameeyay way jiraan waxa jirta tix loo yaqaan busayl cash taasoo ay bulshadu aad u xiisayso bal waxaan jeclaan lahaa tixdaas inaad inoo soo qabato tixdan busayl caashaq waxay ka waramaysaa siday ku dhalatay waayahay tixdan busayl caashaq waxa jira kullay qorays horan dhiibay baan markaa ku jirta tixdani markaa waxay ka waramaysaa un kaliya ta laba qalbi oo isku ooman oo midba meel u jiro kuwaasoo isku soo busaylay marka waqtigii corona ay soo baxday Allahumma salli ala Muhammad tixdani ama jiifta sagaal liidan sida loo yaqaanaba kadibna nin asxaabteeda kamida ayaa sheekadiisa dibadda ka tagtay kadibna Allahumma salli ala Muhammad way isku busaylaan way isku soo daltabiyo ayaa ka dhacday marka wiilka anagu maalma kamida wada fadhinay niyow waxaad samaysaa baltixo aan ku hadlayo oo dareenkayga ka turjumayo inantii aan jeclaa aan isjeclayna halka qurbeega aaday maadaama corona kala xidhay aan u dirdiro WhatsApp-kaygu soo dir mid yaro gaaban waxa ku markaa yaro gaaban kuma soo diray maansan ku haninaya maansada markaa dumaashiyo marka ku maamus marka tixdaas wax ka waramaysaa busayl caashaq waxa weeye waa tix gaaban oo laba qalbi ka turjumaysa oo markaa isku booliyoobay adigu marka la soo ururiyo marka hadaynu ku soconno tixdan iyada waxay noqonaysaa sawman bureeqay baafintaada kuma jiro bari ilaa galbeed kana sawmaad bogsiyay kaama baadhin meeshii beerihii wajaalana sawmaad bogsiyay igu beerin caashaqa baraarugay ayaantan ani aan isbaranee baridaan jeclaayee igu beertay xubbigay ani aanu bogayey
ila biiri caashaqa barnidaan ku xiiqaay goormaan bankeeniyo beligubadla tegaynaa barwaaqada la jaarnaa kabadii bulaaliyo cawskii bilnaaye beri aad u xiisteena goormaad ka bowsani bu'da aragga dhaayaha beerkaygii noqotaye bisha aan ku waayaa 100 iiga dhiganoo busayl caashaq baan galay waayo kabadii bulaaliyo cawskii bilnaaye beri aad u xiisteena goormaad ka bowsani bu'da aragga dhaayaha beerkaygii noqotaye bisha aan ku waayaa beri iiga dhiganoo busayl caashaq baan galay goormaan bureeqay dhaanta aan ka boodniyo barinaa jacayl bilan wuxuu leeyahay goormayn isku soo noqonaayo sidii aan markii hore ahayn goormay noloshu nolo sii socon oo ma garanaysaa halkeennii aan ka sii wadan goormaad bureeqay noqon baaska caashaqa xanuunkaa ballaadhee beledada ku faafay xanuunkan ballaadhe markaa wuxuu ka sheekeynayaa koroonihii iyo ayuu ka warramaya xanuunkaa ballaadhee beledada ku faafee badhna laayay idilkood barhkood jiifshay aqalada barhkood suushay dhowr jeer ayaa buur horseedoo bannad yeele xubigee barinaya ma baride banad yeele xubiga markaa maxaa looga jeeda waxa weeye bannad yeelay waa xakameeyey ama xidhay xubigii inoo socday isagaa xidhee barinaya ma barideen waxaad ku abariisateen inantii salaam buu diray inantiiba markaa soo hadashay iyaduna oo iyaduna markaa alle waan fiicanahay aniga laftigayaagu waan kuu xiisay waxay leedahay boqorkii naftaydow bu'da dhaayahaygoo barinaya bal sheeke u seelay araggaaga anna baafintaadaan bacdada u marayo bayhoofka maalmaha ayaa igu ballaadhoo boog baan ku leeyahay lugta bidix xaggeeda macnaheedu waxa weeye inantii dee boog may soo gaarin nabar muu soo gaarin laakiin waxaa ka turjumaysa iyada laftigeedu inay muddo badan markaa ay tabaysay ha yeeshee bulaalow beerkayga kugu qoray sanbabkayga boodaan meel kuu baneeyo bisha aan ku waayaa 100 iiga dhiganoo busayl caashaq baan galaba iyaduna tiri birmadkii naftaydo batalaale waan iman beerihii wajaaliyo billigeenii waan iman barwaaqadii dalkeennana waan ka bowsan doonaa boqorkii qudhaydow towstaa ballaadhee balli ilaa galbeed timi bannad yeeshe xubigeen bala weeye cudurkani ballan baan ku marayaa markuu baaqdo cudurkani inaan soo baxayo barta aad ku nooshahay beri aan dhankaaga kula jooga barqadee birmadkii naftaydow nafta samirka boobsi birmadkii naftaydow nafta samirka boobsi macnaheedu waxa weeye waan kuu iman doonaa dee ilaahay markuu naga dulqaado waa kuu imanayaa aniga waan kugu soo socdaa aniga laftigaygu markaa busayl caashaq intaasi ayay ku dhan tahay waa hagaag haddaynu kusii socono qeybteeni su-aalaha qofku markuu abwaan yahay oo gabayadii iyo batixihii samaynayo waxaa la idhaha mararka qaar awayaashiibuu ka raacaayo wahido marmarna ilaahay baa u dhaliyo waxaa la idhaha wahibo marka adiga taada teeba la odhan kara niyow labadaba waan isku arkay anigu wata kolley waalidku say kuu sheegaan amba kuu soo wariyaan warkooga waxa lagama bedelo saasuu sax ku yahay waxaa lay sheegon dhagahaygaa ku maqlay markaa barh ka mida waalidiinteedu inay markaa tixaa samayn jireen isugu jira reerabtayaashay markaa welibana u badnaayeen iyo markaa adeeradayba labada dhinacba allahuma salli calaa maxamedee dhanka kalena waan isku arkayoo waxaan isleeyay inta qaraabada ama qoyska faamiliguu ka kooban yahay badanka aniga unbaa iska arkay anigoo samaynaya markaa waxaan odhan karaa dhanna waa iska hibo gaaro dhankaana waxbaan kaga jiraa dhankana lugtaan kala jiraa marka adugu waa isku jirbaanahay baan filaya markaa labada dhinacba inaan markaa ahay aan matelayo loona badinayo markaa inay hibo gooniya aniga ii tahay waxaa jirta qofku markuu abwaanku samaynayo tixaha dareen gooniyuu sameeya amba markuu jawigu si kala yahay amba uu wacan yahay ayuu sameeyaa marka aduu jawiyadu nooca yihiin goorm ayaad dhalisaa qof kasta oo tao abwaan isaga jawiga iska samaysta jawiga tixuhuna badanka iyagaa iska dhashaba yacni adoon ugu talagelin tix inaad samaysa haddaad halkaa fadhiisato waxaa suurtagal in laba erey isku geyn weydo laakiin wixii markay leedahay ujeeddo gooniya ama wax adiga markaa ku shidaya oo kale ama markaa dareen kugu abuurmay dareenadii baa dee iska badanoo ama waad arki kartaa ama ficil baad magaranaysa
marka anigoo jawi gaara oon keligii samaystaa markaan tixaa samaynayo ma jiro jawiyadaasu belimid ka waran markuu roobku do-o oo dhulkuna dee uu aada u wacan yahay ay daruurna isku jiraan uu jawi macaan dhacayo markaasoo kale abwaanadu waxbay dhaliyaan way jirtaa jawigaas wato waa jawi neecaw udgoon kaana badanka waaba loo badanyo inta ugu badan abwaanadu xilligay ku yara maaxta baasho waa xilligaasaan odhan karaa oo waanay jiraan xilligaa xilli aan ahayna dadku sameeyaan marka kulli waa nin kasta jawiga ku soo gaadho uunbuu ku gelaya waa hagaag horta qof kastoo markuu wax qabanayo qof uu ku daydaa amba uu isleeyahay qofka xaggaa gaadh waan gartay maadaama waad abwaan tahay keebaad isleedahay amba waabaan keebaad isleedahay gaadh abwaanadan soomaaliyeed waaweyn iyo talaba unbaa u ah foolaad afka qalaadna la yidhaahda markaa dee yacni role model marka qolada foolaadkana waa dee ustaad gaariye iyo ustaad hadraawi labadaa ustaad eenu ka dambayno badanka ayaan ku yara daydaa 100% markaa oon shabahaan jecelahay inaan dhegeysto suugaantooda noocyada kala duwan heeso gabayo jiiftooyin dhammaan tixaa ay leeyihiin inaan dhegeysto aad baan u jecelahay tixay samayn jireen in kuwayga laga dhadhansada aad baan u jecel in lagu arko sidii iyagoo kale waa hagaag waxaa jirta qiso la yidhahdo dhaban hays bal qisadaas iyo waxay ka sheekeynayso xilligii dhalatay iyo sababtaad u samaysay intaaba adiga noo sheegay beri dhexda ayaan tegey burco kadibna qiso la yaab la markaa nin odayo aan halkaa asxaab ku hayn baa igaa sheekeeyey oo dareenkayga taabatay wuxuu sheegay in inaan ka mida markaa intii la kufsaday la dilay welibana kadibna anoo qisadaas iyo dareenka xambaarsan baan hargeysa ku soo noqday hargeysa markaa yimid baa haddana dhowr qisoo kalaan maqlay oo hablihii markaa in beryihii ugu dambeysay shaydaan wax la yeeliye markaa la waxyeeleynayo oo xubnahoogii la kala dhantaalayo markaan arkay arrinku inuu sidaa ku socdo in habeenada ka mida unbuu dareenkan igu qaaday dhabanahays iyadoo loo aanaynayo ama loo nisbaynayo ama loo tiirinayo dareenkii koowaadeen qaaday inantii la dilay inta la kufsaday la dilay markaa kolley waxa weeye maasadan 3 qaybood unbay ka warramaysa marka hore waxaan ku dhaliilayaa dhanka labka qof kastoo waxaa sameeyaan ku dhaliilayaa inaan waxaa samayna ka joog baan leenahay qaybta dhexe waxa weeye waa qayb iyaga laftigooga hablihii la leeyahay idinkuna is ilaaliyo oo digtoonaado dhaqankiia tuurina qaybta ugu dambaysaa waa qayb waalidkii allah barakeeye aan kaga warramayo oo iyaguna ah inay waalidkii ku tarbiyadayaan hablihii markaa de diintii iyo dhaqankii si aanay waxaan dhacdooyinkan de markaa foosha xun leh qof kastoo da dareen qabaa ama xitaa ugu xumaanta badan ee xumaanta sameeya dareenka marka loo sheekeeyo uu ka naxaya marka 3 qaybood bay baashani ay ka kacaysaa ama diyaaradeedu ka duulaysa marka haddii aanu iska bilowno waxay oranaysaa dharaaraha jooga waxaad duganayso dhawaaqa tixdayda waxay dhidib yeesho dhegtayda maqlaysa haddaanan dhawaaqa maansada dherarkeeda ku dheehan ishayda dhadhanka macnaheeda haddaan dhihi waayo ma dheelin xaggeeda intaa dhismaheed dheh dhambaalka tixdaydheh adduunkan dhacaya dhigtiyo loolkiisa ayaad dhakafaari haddaad dhacdadiisa yar dheehdo xaggiisa dhiilada aan maqlaayo dhibtiyo dhaqan duulay ilmada dhardhanaysa haweenka dhantaalmay warkiyo dhiiladiisa ku sheegi dhibaato dumarka dheehooda maxaa dhilay maanta sharafta dhowrsanteenna maxaa dheeli yeelay mar way ku dhalaysaa mar way ku dhaxaysaa mar waad dhali doontaa adoo warka dhaadan maxaad u dhib yeeshay maxaad qurux dheeh leh dhalaan socod biirshay maxaad u dhantaasheen yacni maxaad hablihii markaa ugu ciyaarteen oo markaa allahumma salli ala maxamed aad xubnoogii u kala goyseen maxaad dheeman fiican dhabbeel dharar toosan maxaad u dhibaysaan
walee dhagxum oo dhan adaa dhabarkaaga ku qaatay dhurwaayow haddaad wax dhibayso oo aad wax dhacayso heblaay dhaqankeenna haddaad dhinac baydho dhankan waxaa ka waramaysaa inantii iyaduna inay ilaashato dhaqankii halkaa waxaynu ku dhalinay wiilashii hablihii baan la idinkuna iska jira heblaay dhaqankeenna haddaad dhinac baydho dhismaha xubnahaaga haddaad dhowri weydo adaa kaba dhoohan sharafta dhaladkeeda intii wax dhibaysa allow dhinac dhaafi haweenka dhankooda dhafoorka dhegtaydu wuxuu ku dhowaaday inuu dhinac jeexmo markaan yar dhagaystay dhawaaq xumo sheegay allow midka dhaarsan ku dhaartay xaggiisa inuu dheemanteenna ka dhiga hiddaheeda ku dhaartay xaggiisa dhaxalka ummaddeenna inuu dhalmo beena dhex keena dalkeenna allow dhinac dhaafi haweenka dhankooda yacnii qof kastoo doonaya inantii inuu dee magaranaysaa allahuma salli xubnaheedii kala dhamaystiro oo uu kala gooyo ama uu ku xadgudbo allow dhinac dhaafi haweenka dhankooda in leenahay allow midka dhaarsan ku dhaartay xaggiisa inuu dheemanteenna ka dhiga hiddaheeda ku dhaartay xaggiisa inuu dhaxalka ummaddeenna ku dhaartay xaggiisa inuu dhalmo beena dhex keena dadkeenna allow dhinac dhaafi haweenka dhankooda dhagaysta dadkaygow markaa qaybtan dambe waxaa ka warmaysaa waalidkii inay markaa iyada lafteeda ay hablihii ay noqdaan iyo caruurtii inay noqdaan dhaqankay ku hababiyaan dhagaysta dadkaygow haddaan dheg tallaabno ka dhowrsan xumaanta midtaad dhabta saartay haaneedka dhansiisay ku dhashay gundahaaga haddaad dhaqan beena ku dhigta laabteeda u dhigan dhanka fiican adaa dhibka yeeshay dhammaan tixahayga waxaan ku dhameeyey intii wax dhibaysa allow dhinac dhaafi haweenka dhankooda markaa tixdaasina waxay ahayd dhabanahays ama allahuma salli ala maxamed ay ka waramaysay dhankaas iyo qisadii markaa inantii la faraxumeeyey la kubsaday kadibna la dilay iyo dhammaan hablaha kale saa lagu sameeyo shanta gees meeshii doonaan ha joogaan aduu waxay tahay un dhiirigelin unbay soo koobsanaysaa in dadku iska joojiyaan in dadkii ay ku noqdaan dhaqankeennii iyo magaranaysaa waalidka lafteeda inay ka qayb qaataan gabayadaada horta ma waxay u badan yihiin jacayl oo amba arrimaha bulshada amba dhaqanka wallaahi dhaqankana waan ku jiraa bulshadan arrimaha bulshadana waan ka waramaa laakiin badanka waxaan oran karaa arrimaha bulshadaan ugu yara badbadanay markaas si loo ogo kastoo jacaylku ii soo raaca laakiin arrimaha bulshadan aada ugu yara badan waxaa jirta iyaduna tix loo yaqaano dulmi waxaan jeclaan lahaa tixdaas inaad noo soo qabato iyo waxyaabahay ku dhalatay tixdaas tixdan dulmi waa tix xota kolley dareenka bil-aadanka qisadii hore inu ka sheekeynay qisadan aad bay uga sii xamuun badan tahay qisadan waxa ku dhacday inan bay ku dhacday iyada lafteeda ku dhacdee laakiin balse si ka duwan sida imika inantan ugu dhacday iyada ugu dhacday waxa weeye waa inan markaa ku raacday wiil lacagtiisa markaa hilaada waqtigii 2015 iyadoo markaa garaad ka dabriya aan lahayn kadibna allahuma salli ala maxamed inantii ay aqal galeen inankii inantii markii ay aqal galeen kadibna inantii maalmaha ka mida iyadoo waxba ku samayn uu 2 dalaaqadood siiyey iyadoon waxba ku samayn oo dhexdooda aan waxba iman aanay waxba isku ogeyn buu inantii 2 jeer markaa allahuma salli ala maxamed furay ama 2 dalaaqadood buu siiyey kadibna inantii way weydiisay waxaa dhacay uu ka jawaab waayey waalidkeed oo markaa allah u naxariistay geeriyooday oo markaa ay ku hayeen ciddii faamiligeeda awoyaasheed gacanta ku hayeen ayuu u sheegay kadibna ugu dambeyn wuxuu ku andacooday inantii in dib loogu soo celiyo uu khaldamay isagu markaa muxuu ku sababay 2 dalqadood uu ku furay markii hore sababta inantaa uu ku furay markii aan anigu weydiiyey runtii way iga yaabisay maxaa jira baan idhi maxaa dhexdiina markaa ka dhacay waxay tidhi waxaba yaraatee ananu sameeyey ma jirto markaa allahuma salli ala maxamedee qisada qaabka igu soo gudbisay qaabkaasuu hayo waanay sii socotaaye waxa dhacday kadibna inantii markuu 2 jeer furay ayaa loo soo celiyey markii xaafadii awgeed ay ku duday kadibna markii loo soo celiyey ayay weydiisay sababta oo 2 dalaaqadood u siiyey ugu dambeyn wuxuu yidhaahday dee anigu stress haystay iyo wax isku buuq kadibna gooraan ku furayba garamayo markaa waxaad ka garanaysaa in wixii raqiis uu iska noqday guurkii
kadibna inantii waan kugu khaldamay raaligelin buuxdana inantii waa ka siiyey kadib waxa dhacday shaydaan wax la yeeliye arrinku markuu sidaa u socday ayaa inantii markaa waxay u qaaday ilmihii koobaad markay u qaaday ayuu wiilkii qabay uu yidhaahday waxaynu tegaynaa dhankaas iyo koonfurta kadib waxay tiraaday hadda umul baan ahay markaa ma tegi karo halkan markaan ku umulo kadib aynu tagno inantii wiilkii sidii buu ku tegey maalinimadkii dambe ayuu wuxuu u soo diray markay ka harhsanayd muddaday umuleysay in yar dalaaqdii saddexaad buu message ugu soo diray uu leeyahay waan ku furay tii ugu dambeysay way yaabtay madaxay qabsatay dhabanahays bay ku noqotay runtii qofka biniaadamkii markuu igaa sheekeynaya aniga laftayga cuntadii igama dayin yani yaab bay noqonaysaa qof khaldamay mar oo soo noqday kadibna haddana messagekaagii dalaaqdii saddexaad lagugu soo diro naxdin ka weyn maba jirtaba bilaa sabab maxaa dhacay kadib waxaa dhacday shaydaan wax la yeeliye inantii iyadoo yaaban maalinimadkay umuleysay wiilkiisa ayay habeennimadkii facebooka lasoo dhigay isagoo guursanaya oo arooskiisa ka dhacayo koonfurta isla wiilkii dalaaqda saddexaad markuu siiyey 3 cisho kadib sariirtii ku umulisay iyadoo saaran ayuu habeennimadkii ayaa la tusay facebook ayaa laga tusay wiilkii furay inuu caawa guursanayo gabar ay garanayso iyadoo 3 cisho iyadoo umulba oo 3 umusha ku jirtay oo yani umusha kadib 3 cisho kadib ayaa aragtay la yaab iyo fajac ayaa makaag bay ku noqotay intii gurigii bay ku noqotay waa la isla baroortay ugu dambeyn intii nolosheedii midowgaheeda ka qasaartay ee wiilka markii hore ay lacagta ku raacday ee sida u galay way iska baabisay weyn iska ilowday waxa sheekadu socotaba ama qisadu socotaba ugu dambeyn intii wiil bay jeclaatay wiil marka ay jeclaatay ayaa waxa dhacday waxay go'aansadeen inantii inay isguursadaan inankii xaafadda wiilkii ayaa waxa dhacday inay yidhaahdeen inantaas kuma siinano waayo waa gabadh garoob ah inantii jacaylkii quruxda badnaayee hore uu ka baaba'ay oo nolol madow way ka gashay kii dambe ay samaysatana waalidkeediiba wiilkii u diiday qisadaasi markaa waxay yaro noqotay mid yaro ama kaaga laba dhacdo ishuwan weeyaan dhacdo inan markii hore markaa mustaqbalkii lagaga ciyaaray oo dee allahuma salli ala maxamed ididiiladii iyo allahuma salli ay doonaysay inay mid kan ay noqoto dee mid ka mida waalidiinta hirgale ubad badan tarmiya umay suurtagelin ma la odhan karaa markii hore ayadaa qaladka lahayd oo ku raacday wiilkii hore lacag way jirtaa qaladkaa markii aan weydiiye lacag bay ku raacday waana inoogu jirtaa meesha qaladkay lahayd waxa weeye wiilka ay sasahamsadeen waxa weeye waxa ku raacday waa maal laakiin balse de qof lacag waa lagu raaci karaa laakiin ka dhacdada sii sameeyey waa nin raga iyada waxa loo oran karaa iyada waaba loo aaneynaya waa gabadh baa la oran karaya laakiin wiilka markuu yahay uu ka yara duwan yahay isagu markaynu isla eegno inantiina wiilkii dambena wuu seegay wiilkii horena wuu seegay dhacdadaasi markaa taasi ka turjumaysa waana dhacdo la yaab leh oo xaqiiqa waxaana dhacday 2015 muddada la soo wariyeyna waxay ahayd 2021 sanadkii imkana dhaaf waxay ku bilaabaysaa sida tan waxaan dirayaa dhambaal markaa inanta maadaama tahay qof wanaagsan oo isku dhownahay oo arrimaha iga sheekaysay isku dhawaansho ahaan looguma samayn tixdan laakiin balse dareenka xambaarantayba ajiyay marka dareenka ayaan keenay qaabka u soo gudbisay iyo qaabka khaladka ay yeelatay ee ku raacday ee ku ogaaday qaabka uga run sheegayso ay u qaratay ayaa dareen noqday marka waxay noqonaysaa tixda waxa ka turjumaysaa inaad markaa aad iska hubsato lamaanaha mustaqbalkaaga qofka nolosha la wadaagaysid uun bay ku soo khulaasoobeysaa waxaan dirayaa dhambaal waxaan dalbayaa ujeed haddana waxa aan dayacay noloshu dayrkay lahayd daruur curataan ahaa dugsoon wacan baan ahaa maruun dam tidhaahdayo nolosha doorkeeda hore aan helin ruux un dejiya
inantii baa markaa hadlaysa oon dareenkeeda u gudbinaynaa. qalbiga durkayee isnacay qofkan darajada u dhiibtay, qofkuu damiirkaygu raacay, daryeel kama helin xaggiisa, intuu dusha iiga baaqay ayaan dollar aan ku raacay. lacag baan ku raacay marka hore leeday, run bay sheegaysaa. damiir maydaan la hoyday, anaa ku dambaabay caashaq, dubkii jacaylkana ka siibay, dayrtaan gurigaas yegleelnay ma hayn garaad iga dabraya. macnaheedu waxa weeye inantu talabaad ee raacis waxa weeye muddadii way guursanayay, yacnihii fikir buuxa kamaba lahaynba guurku wuxuu yahay. markii la duceeye maalmo ee aan muxibiya dawaafka ku marnay daruuraha dhaqaaqa, markaan dusha aan ku qaadnay jacayl diranoo siyaadmay, anoon dib u dhigin jacaylka, anoo u dirnaa dhammaantii, anoo ku digriya jacaylka, anoon dembi aan maleegin, anoon duul kale ka raacin, anoon niman kala danaynin, digtoor anigoo ahaaday, anoo u nuglaa dantiisa, weliba ku dakayne farxad ayuu dalaaqdii isiiyey. arrinku isagoo sidii qurux badan qoyski jiro unbuu ihi waad iga furantay mar quraynatay. qisada un baynu gudbinaynaa, wixii qarsoonna ilaahay baa og. ma jirin dulmi aan falayey, ma jirin dagaal aan sameeyey, ma jirin dookhoo nacayey, derbiga burbureen naftayda ma haya dabar aan u jiido, midkaan doortee ku faanay, midkaan darajada jacaylka u dhiibtay difaacii quluubta, daryeel muu falin xaggiisa, dubkaa huranee ku faafay dhammaan diirkii ka shayda, midkii damillaa ma joogo, intaan derbiyada ka ooyey ayaan dumarnimo adkaystay. inantii nolosheedii hore way ka kaaleen. mid labaad bay tiri, amintaan dunidani dul keenay, wiilkuu daa'inkai siiyey ayuu isaguna durbaanka aroos u ahaa dakeeya. waroosanay xilligaan markaan umulay wiilkiisa leeday, anoo daayoo ka dhaartay ayaan ruux kalena doortay, markaan daacadiisu jeclaanay, markaan danta aan wadaagnay, markaan dusha aan ku qaadnay, xubbiga daahiisa qaydnay, waxaan danta aan ku goynay inaan guri dejino fiican. yacni wiilkii dambeen isjeclaanay waxaan go-aansanay inaan guri degno qurux badan. waa wiilkii labaad. qadarka daa'inkaa lahaaye ileen daliil baa xigayey, ileen dirhan layma sheegan, ileen qoys horaa danaystay, ileen marwo horaa darnayde, ileen dayac baan ahaaye waxaa diiday oo ka dhaartay qoyskii wiilkii i doortay, inaan xubbigii i deeqay la dhisa guurkii ducaystaa. waxaa dam yidhaahday guurkii. macnaheedu waxa weeye ugu dambaynna arooskii iyo noloshii farxadda lahayd ee islaatii hore ku ilowna, tii labaadna dam bay iga tiraaday. qisadu intaasi ayay ku saabsan tahay. waa hagaag. haddaynu intaa kaga nimaadno qisadaasi dulmi oo xambaarsanay dareenkaasi cajiibka, inagoo ku jirna gabagabadii barnaamijka, waxaan jeclaan lahaa inaad nagu soo gabagabayso tixda saluugla. okay, waynu iska wadanaa. saluugle waxay ka waramaysaa un nin kastoo dee bilaadina wuxuu ka sheekeeyaa waa inanta mustaqbalka ilaahay buu ka magaranaysa, ama tix ha sameeyo ama yaanu tix samayn, ama dee qolada abwaanada ku jira ama yaanu ku jirnay. qof kastaa wuxuu jecel ilaahay inuu weydiisto gabar wanaagsan. markaa kulley saluugli waxay ka sheekeynaysaa imagination uu ku jiraayo. wax imagination ana waa mala alwaalo, waa suugaanta yaabkeeda la dhaa. marka macnaheedu waxa weeye waxyaalo aan qalbiga bilaadanka gashanayn ba iyada lafteeda ku jira. markaa abwaanadan dambe abwaano fara ku tirisa unbaa sameeya mala alwaalka. markaa saluugli waxay leedahay waa inanta mustaqbalka noocay noqonaya ilaahu noo wanaaji, inta dambana waa baryo ilaahay aan ka barinay inantaasi noo wanaagsanaato ayay ka waramaysaa. waxay leedahay sanad yahaw dhammaadee sikinada la kowsaday, adigaan ku sugaynay salka dhiga bal maantoo maxaad noo sidaa sheeg, saxan saxa udgoon iyo same lagu nagaadiyo, surmi laga fogaadiyo masidaamidhaydii, sadrigaygu tabiyo saldhigayga degilayd, magaceeda soo daa, mase abaa masaada, mase gilxishootaa, masafaa macaashaa, ma suleekha wacanbaa, ma suuraafta meertaa, ma salfudud cadhootaa, mise waaba samiraa. sanad yahaw bilaabmee soo dumay alleylkii, saatirkaan baryaynaa sinaantoona deeqdiyo, saatirkaan baryaynaa same laguna waaro, saatirkaan baryaynaa guushoo sugnaato, nabadoo siyaado, kii lagu samaadee, saatirkaan baryaynaa midda aan sifaystee siinley ku sheegtaan, soo rogi ujeedkee ila soco adoo sugan, hana seexanee maqal. gabadhii aan ka sheekeynayay ayaanu sifeynaynaa, ilaahayna aynu ka baryaynaa. marka waynu bilaabanaa. haddii aad safkaygiiyo sawjadayda noqon layd, waxa aan ku siin lahaa nafta aniga igu sugan. haddii aad saluuglay sahwigayga tiri layd, sawir baan ku siin lahaa ka samaysan dahaboo laga saray 9 luul.
surbacaadka caashaqa sida uu u dhaawacay sawdkaygii saakana haddii aad saluuglay samir aad fari layd samadaan ku geyn lah markaasaad 9 beri salli aad dul joogtiyo samsamaan ku siin lah haddii aad saluuglay inta saaka joogtiyo sulfo iyo ragoo idil haddii aad saluuglay sawdka aad ka xidhan layd sacab iyo durbaan iyo soo wareeji caawo cunto fududna siiyo silis aan dalkeeniyo lacag aan la siinayn soomaali oo dhammi ay wada sugaysaan kugu soori laayo qoorta kuuba sudhila sikinkii la joogaba quruxdaada sooca way sii siyaadaa xidigaha siraatee samadaa dul joogana nuurkaabad siisa haddii aad saluuglay sawjadayda noqon layd sikinkaad naftayda aad la joogta saaka 9 kuuba noqon lah haddii aad saluuglay isku soo dhowaan layn caruur aan sugaynaan magacyada u sixlayn haddii aad saluuglay isku soo dhowaan layn sumad aan dhammaanayn magacaaga 30 jeer sumad aan dhammaanayn magacaaga 30 jeer saxiix baan ku qori laa sanbabkayga keliya haddii aad saluuglay isku soo dhowaan layn wadnahaynu sidanaan isku soo hilayno isku saara indhaho isku seesta qalbigo isa siiya laabtan sanadada ahaan layn ha yeeshee sareedada sirta guusha waxa hela labadii sugnaadee sadrigooga uu dego jacayl aan silcayno laga saaray shakigee saatirow allahayow sawjad ii sugnaato laga saaray xumaho laga seesay naxligo lagu sooray xubigo laga siibay beento lagu soohay qalbiga soo sheegtay aniguye ii saxeex raxmaano waxba yaanan sii wadin siinlayda tixahee soo carar midhayday waxba yaanan sii wadin siinlayda tixahee soo carar midhayday calaf baa siraato isa siiya qurahee sidii roon allahayow adaa saatiroo jira markaa khayrkay tegaysaa wey macnaheedu maasadii saluugnina intaasi ayay ku dhantahay intaasi waxay noogu dhan barnaamijkeenii oo martida noogu ahaa abwaan mahad xikmaawi barnaamijku waxaa idinla socodsiinayay anigoo caamir cabdirashiid cabdilaahi camar yabaasha daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta mudanow intaan barnaamijka mid lamid ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu